waa ku dhawahay salo aad waa maasantay saaxiib barnaamijka kuma cusbi aad iyo aad laakiin waxaa laga yaabaa hadda inaad wax iga weydiinayso maadaama oo aan hadda kolley aan imiyo walaahi niyahow soomaaliya sida wax u socdaan waxa hadda ugu dambeeyey waxay ahayd waxaa naloo sheegay waxa la yidhaha doorasho oo golihii baarlamaanka ee soomaaliya in la dooranayo dowladdii hadda jirtayna xilligu ka dhamaaday iyo xilli dheeraada ku darsatay iska aan oo xilli official ahayn laakiin iska yimi anigu haddii aan hadda inta aan xoogaalka ka ahay aan wadankii kusoo arkay waxa ka socdaa maaha wax qurux badan magacay doorasho ka tahay miya magacay ka tahay weliba in magac kale loo saasaan u fahma hadalkaaga aniga warkaygu waa cad yahay tv hore ay wareystayna waan ka sheegay waxa aan anigu hadda odhan karo waa doorasho ma ahayn waa boob inta badan ay fulinayaan maamul goboleedyadu xun tahay xagga maaragtay sida wax loo qaabaynayo iyo qaabka wax loo dooranayo meel la isku dooranayo ma arkaysid afkay doorasho ka tahay waxa weeye wax allaale waxaan ku tilmaano ma garanayno marka adigu waxaan soo arkay ama beryahanba socday wax aan ka digayo oo aan soomaalida o dhan uga digayo wixii dhegaysanaya waxaan ka digaya waxa weeye jiilasha cusub ee dhallinyarada ah ee soo socda ayaa dowladnimadii wax loo barayaa si khaldanba dhallinyaradii waa ku sheekeynaysa markaad joogto soomaaliya waxay ku leeyihin kursigii hob sidaa ahaa hebel baa loo xiday dhallinyaradu waxay moodaysaa in yani sidaasay ku kacaamaya hebel baa loo xiday hebel baa loo boobay si khaldan baa waxa loo barayaa jiilashii soo kacayay dowladnimadii marka haddaad i weydiisay waxaasaan soo arkay wixii ka soo baxaana wax macno oo badanoo ay leeyihiin kii allaala kii madaxweyne soomaaliyeed loo doortaa waxaa soo doortay xildhibaanada noocaa ku yimi corruptionka ee liita weliba oo weliba gobol walba markaad fiiriso shakhsiyaadka xitaa lasoo xulanaya dad caadiya maaha marka waa intii ugu dhibaatada badnayd waa intaa oo lalahaa hadda gaalada xitaa markay ku daashay waxay ku yidhaaheen bal xitaa sidiina corruptionkaa wata oo loo sameeya ma garata heerkaas hadda la taagan yahay soomaaliga qofka ahina qof kastaa waa laba qof markay idaacadaha taagan yihiin iyo markay doorasho rabaan iyo markuu practically wax fulinayo waa laba qof kastaa waa laba qof waxaan dee doorashada la leeyahay marka taas magacaas doorashada baa ka raacayna taasaan sugaynaa waxaan sugaynaa bal taax waxa sidaa ku yimi waxa ay doortaan hadalkaas anigu wax way ka sugi maayo hadalkaas kusoo gabagabeyn